وباهدي هيران ونقول آذي حمر صدح دي قضب ونحمر أتغي وأن دولدة كلا صوح اللي صدح دي قضب موالا أقبل وآيربوركا وبيلعبه وبيحرين صدح دا قضب وحقوق أذك بيحريك بيها لعبه وحسمينا يا أكوادوتده دولدة تليانيغا ايربورك وحسمينا يو دولدة تليانيغا مركان إدلي هي دولدة تليانيغا ورسيسكو وحماريا دولدة الصومالية iyo dowladda Talyaaniga weey qodobka saddexaad oo biyo xireenka waa laba qayb waxa bixinayo dowladda Talyaaniga qaybna waxa bixinayo World Bank biyo xireenadu labadaas ay u qaybsan yihiin anigu hadda ka hor waxaan warbixinta u bixin waayay waraaqadahan baa gadaal iga jira qofku wuxuu sheegayo inuu runtiis tahay inuu beentiis tahay waa inuu proof wax cad keeno waa waraaqadihii ogolaashada oo kuwaas ninkii rabo koobi waa la siina ninkii rabo waa sawiran karaa in wixii aan xamar u tagay oo ku saabsanay gobolkan inuu dowladdu aqbasho warqadan waxaa laga qoray xafiiska prime ministerka wax marka la qabanayana process la maraa iyo nidaam dawliya waraaqado badan la isu dirdirayaa laakiin warqadan waa warqadii u horeysay saas la ogaado ujeedadan oo tagay xamarna in la soo aqbalay markaan taa ka gudbo waxaan u gudbiyaa Soomaali weyn hadda ka hor muddo laga joogo 5 sano waxaan sheegay Soomaaliya inay u baahan tahay dib u heshiisiintaas ha ka dhaqan gali waay Hiiraan aanu ka dhamaan weyn Soomaali weyn inaan u gudubnana qorshahaynu waa ahaa hadda waxa jiro salaadiin ka hadashay magaalada Hargeysa haddii aanu nahay duubabkii reer Hiiraan ama reer Hiiraan shacab iyo duub isku daro waa soo dhaweyneynaa arintaas in laga howl galo Soomaali inay dib shaqo u bilowdo oo Soomaali weyn ee heshiiso waa laga maarmaan dhibaato fara badan dalkaanu soo maray su'aasha imaanaysa waxa waay waa labo wal dadkan dhibaato ma loo celiyaa oo dhibaato ma u dhibay mase waa laga gudbaayo wax masaalaha la isku dayaa